waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobadii wararkii ugu muhiimsanaa ee naga soo gaaray dal iyo dibid maanta qodobada maanta aan ku eegi doonana waxaa ka mid noqon doona barnaamijkeena dowladda federaalka Soomaaliya oo yeertay safiirkeedii u fadhiyay dalka Kenya kadib safarkii madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe uu ku tagay dalkaasi Kenya Mareykanka oo saacadihii ugu dambeeyay hawada uu ka baxay aabka loo yaqaan TikTok kadib dowladda oo mamnuucday maalmihii ugu dambeysay ee socdeen digniino lagu mamnuucay sidoo kalena hawada looga saaraya aabkaasi TikTok marinka Gaza waxa ka dhaqan gashay xabajoojintii maalmihii ugu dambeysay lagu dhawaaqay waxa dabaaldegyo ay ka socdaan marinka Gaza oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka socdeen dagaalo ba'an duqeymo ba'an ay u geysatay Israa'iil iyadoo ku dishay kumanaan Falastiiniyiin ah qodobada iyo kuwa kale oo muhiim ah ee barnaamijkeena ku maqli doontaan ee ugu horeyn waxaan ka codsanayaa inaad janaalka subscribe saartid like-na saar kambeelkana furo si ay ku soo gaaraan warbixinada iyo waraysadada xasaasiga ee halkaani ay ka sii deeyo waxaan daawadayaal soo dhawaada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa u yeertay safiirkeedii u fadhiyay dalka Kenya kadib safar uu baxay Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka Jubbaland khilaaf baan oo ka dhaxeeyay dowladda federaalka Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyay maamulka Jubbaland ayay sababay in dowladda federaalka Soomaaliya ay xayiraad ku soo rogta dhanka duulimaadyada ah maamulkaasi Jubbaland hase ahaatee waxa duulimaadyadaasi ay dowladda ku soo rogtay dhaqjalaqa u siinay madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe sidoo kalena Axmed Madoobe ayaa ku tagay safar iyadoo diyaarad khaas ah ay wada magaalada Nairobi caasimada dalkaasi Kenya si weyn loogu soo dhaweeyay isagoo la kulmay madaxda dowladda Kenya iyo sidoo kale waxa la qorsheynayaa inuu la kulmo shacabka Jubbaland ee ku sugan magaalada Islii marinka Gaza waxa ka dhaqan gashay xabajoojintii lagu dhawaaqay maalmihii ugu dambeeyay waxa isku soo baxay kumanaan Falastiiniyiin ah oo dabaaldegaya xabajoojintaasi iyadoo kumanaan Falastiiniyiin ay ku dhinteen marinka Gaza Israa'iil ayaa qorsheynaysa in ciidamadeeda ay kala baxda aagaasi Gaza kadib dagaalo ba'an oo ka dhacay muddooyinkii ugu dambeeyay Israa'iiliyiinta ayaa la kulmaya xaalad filan waa ku noqotay kadib markii lagu arkay guud ahaan marinka Gaza ciidanka u tababaray sida militariga ee Gaza iyo booliiska Xamaas oo wata gaadiid kolonyo ku socdo tanna waxay dhalisay inay isweydiiyaan Israa'iil iyo sidoo kale dalka Mareykanka oo taageero xoogan ka siinayay la dagaalanka ururka Xamaas iyo guud ahaanba Falastiiniyiinta ayaa isweydiiyay su'aalaha sidaan miyay ku jabeen Xamaas dhawaan xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa qiray in howlgal military aan looga adkaan karin Xamaas sidoo kalena weerar lagu qaado Gaza iyo burburin loo geysay dadka shacabka aysan ahayn in looga hortagay awoodda Xamaas hase ahaatee ay tahay in xabajoojin la sameeyo sidoo kalena miiska wada hadalka ay isugu yimaadaan Israa'iil iyo ururka Xamaas ee ka dagaalama dalkaasi Falastiin wasiirada midigta fog ee xisbiga Usmaama Yuhuudi ee Israa'iiliyiinta ayaa dhammaantood warqad iscasilaada u gudbiyay Netanyahu iyagoo sheegay inay ka baxeen xukuumadda Netanyahu sabab la xiriirta heshiiska ay ogolaadeen xabajoojinta marinka Gaza wasiirada iscasili ee xajirka ayaa kala ah wasiirka amniga Israa'iil wasiirka horumarinta iyo wasiirka hidaha iscasilaada saddexdan wasiir iyo ka bixitaankooda xukuumadda Netanyahu ma gaarsiisan awood ay ku burburiyaan xukuumadda Netanyahu iyadoo wasiirada iscasilay ee xajirka ah ay sheegeen inay xukuumadda ku laaban karaan markii dib loo bilaabo dagaalka Gaza wargeyska Israa'iil ee Israa'iil Hayom ayaa ku warramay in Israa'iil ay sii dayn doonto 90 maxaabiis Falastiiniyiin oo lagu bedelanayo 3 Israa'iiliyiin oo ay Xamaas maanta sii daynayso Falastiiniyiinta la sii daynayo 78 ka mid ah waxay aadi doonaan daanta galbeed halka 12 ka mid ahna ay aadi doonaan bariga Qudus Falastiiniyiinta ayaa sidoo kale waxa ay maanta isugu soo baxeen gabi ahaanba magaalada Gaza iyagoo u dabaaldegayay guusha iyo sidoo kale xabajoojinta waxa la arkayay dad shacab oo ku noqonaya xaafadii ay ka soo barakaceen ee muddo 15 bilood ka badan ay ku socdeen khadqeymaha ay u geysanayso Israa'iil waxa sidoo kale la arkay dad ismarxabeynaya oo muddo kala maqnaa sidoo kalena ku kala qaxay dagaaladii ay Israa'iil ka geysatay halkaasi iyo duqeymihii baanaha ee ay u geysatay kumanaanka Falastiiniyiintana ay ku laadeen dhinaca kale madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in 90 cisho uu siinaya in aaladda TikTok ay ka sii shaqeyso dalkaasi Mareykanka iyadoo ay maanta ku arkayd in la hakiyo sidoo kalena guud ahaanba la mamnuuco aabka TikTok oo dalka Mareykanka ay sheegeen inuu halis ku yahay maanta ay xad la filinayay in dhaqan gasho mamnuucida aaladda TikTok ee Mareykanka Trump oo la dhaarin doono madaxweynaha 47 ee Mareykanka ayaa u sheegay warbaahinta
NBC News in ku dhawaaqista arrintan ay u badan tahay inay imaan doonto Isniinta marka uu xafiiska la wareego. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa jimcihii taageertay sharci mamnuucaya aabka gudaha Mareykanka iyadoo amar ahaa in shirkadda TikTok ay jarto xiriirka ay la leedahay shirkadda ay hoos timaado ee ByteDance oo xarunteeda tahay dalka Shiinaha ay iibiso aaladda marka la gaaro 19 Janaayo. ByteDance ayaa diiday inay raadsato iibsade. kordhinta 90 maalmood ayaa u badnaan doonta in la sii doono sababtoo ah waxa ku haboon tahay waad og tahay waa ku haboon tahay waana in si taxaddar leh u eegno waa xaalad aad u weyn ayuu Trump ku yiri waraysi uu siiyay. si kastaba ha ahaatee Soomaali badan oo ku nool dalkaasi Mareykanka oo aaladda TikTok ka sameynayay lacago badan ayaa sheegay in arrintan ay tahay nasiib darro weyn iyagoo akoonadooda TikTok ku raadinayay iib ama beec si ay uga gataan dadyow badan oo ku nool qaaradaha Yurub iyo sidoo kale Afrika. kadib 9 cisho uu ku daray madaxweynaha cusub ee Donald Trump lama oga in ay sii shaqeyn doonto aaladan TikTok oo si weyn ay u isticmaalaan Soomaalida ku nool dalkaasi Mareykanka. guud ahaanba waxaan halkaasi ku soo afmeeraynaa barnaamij wareedkeen haddii ay tahay markii ugu horeysay soo booqato page-ka ama YouTube-ka Amiro Suleymaan fadlan waxaan ka codsanay inaad subscribe sidoo kale haddaad naga daawanaysana page-ka follow dheh ina soo raaco inagu soo biir muuqaalka share garay like saar si uu u gaaro saaxiibo badan aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.